madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu ku qasban yahay markan in uu nabad qaato maadaama xiisadda ka taagan gobolka Bariga Dhexe ay noqotay mid muddo dheer sii socotay saameynna ku yeelan karaysa mustaqbalka doorashada xisbiga jamhuuriga sida ka muuqanaysa saraakiil kala duwan oo saaka ay soo xiganayaan qaar ka mid ah wargeysyada waaweyn ee waddanka Mareykanku waxa ay tilmaamayaan in Trump iyo aqalka Washington ee aqalka cadba ay doonayaan in xal kama dambaysa laga gaaro dhibaatooyinka ka aloosan gobolkaasi isla markaana la raaco tilmaamaha dowladda Pakistan ee wada xaajoodka nabadda maxay tahay waxyaabaha ku qasbaya Trump in xilligan uu nabad doorbido iyadoo Israa'iilna warar soo baxaya ay tilmaamayaan in ay diyaariyeen ciidamadooda oo ay damacsan yihiin weeraro hor leh inay ku qaadaan gudaha waddankaasi tafaasiil ayaan idinka siin doonaa aragtiyada kala duwan ee ka soo baxaya Tel Aviv iyo Washington iyo waliba dhawaqyada isweydaaran ee ka imaanaya Pakistan iyo waliba waddanka la yiraahdo Iran mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradaha amuraha dibadda ee Shiinaha iyo dalka Iran ayaa xalay wada hadlay iyagoo tafaasiil la helaya ay tilmaamayaanba in dhinacyadu ay si weyn diiradda u saareen xiisadda marinka Hormuz Shiinaha markan waxa uu Iran ka fulinayaa mid ka mid ah codsiyada Washington ay u gudbisay ku aadanayd in la furo marinka Hormuz muxuu yiri wasiirka amuraha dibadda ee waddankaasi Iran Abbas Araghchi barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa khiyaartayna la socotay nidaamka Israa'iilna waxay soo bandhigeen 3 qodob oo lagu xirayo shuruudo la yaab leh oo ku aadan xabad joojinta dalka Lebanon shuruudahan waxaa la leeyahay dowladda Lebanon ka tanaasula arrinta la xiriirta gobonimadiina iyo jiraalkiina oo la mid noqda Falastiin mase waxa ay noqonaysaa mid Mareykanka uu horfiiq ugu noqonaya arrintan Israa'iil Netanyahu muxuu isku hadlaynayaa barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan khiyaartayna la socotay warar kala duwan oo ay qorayaan wargeysyada Israa'iil kuwa Iran kuwa Mareykanka iyo kuwa Carabta ayaan ku soo koobaya iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee gobolka Bariga Dhexe ku soo dhawaada khiyaartayna la socotay aroornimadan oo subscribe saara YouTube-ka si aan meel dheer u gaarno fariinteena qaybta hoose inoogu qora haddii aad dhinaca Facebook nagala socotana nagu soo biiro follow soo dhabeeshka aad baad u mahadsantiin ma ku daashay safaf dhaadheer iyo khidmado qaali ah marka aad doonayso inaad lacag dibadda u dirto ma ka walwashay in lacagtu wakhtigeeda ku gaari doonto ehelkaaga ma kaa raageen lacaga aad ku tala gashay in lagu bixiyo iskuul ama maalgelin ganacsi Safari Remit ayaa kaa haqabtiraysa baahiyaha waa adeeg lacag diris online ah oo kuu sahlaya inaad lacag dibadda ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada waa adeeg fudud degdeg ah ammaan ah khidmadiisuna ay jaban tahay Safari Remit waxa ay kuu saamaxaysaa inaad lacagtaada gaarsiiso dadka kuu muhiimka ah meel kasta oo ay joogaan goor kasta oo ay u baahan yihiin booqo barteena www.safariremit.com Safari Remit lacag dirsasho ammaan ah iyo tayo sare ururka xisbiga ee waddanka Lebanon waxa ay xalay ku dhawaaqeen in ay kor u qaadeen duqeymaha ka dhanka ah nidaamka Israa'iil ee weerarka ay ku haya koonfurta waddanka Lebanon saacadihii xalay ee dambe ayaa wararku sheegayaan in halka loo yaqaan Bayada iyo waliba deegaanka lagu magacaabo Baytul Jubayl iyo dhulka buuraleyda ah lagu soo waramayo aagga koonfureed ee Khiyam ay ka dhaceen howlgallo weyn oo military oo ka dhana ciidamada Israa'iil halkaas oo shalay gelinkii dambe uu booqday taliyaha ciidamada militariga nidaamka Israa'iiliyiinta ee lagu magacaabo Eyal Zamir isla wararka haddii aan sii eego waxaa la leeyahay jasiira ay saaka qorayaan mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa waxaa la leeyahay wadahadallada la filayo inay dhawaan ka qabsoomaan magaalada Islamabad ee waddanka Pakistan waxay u arkaan inay noqonayaan kuwa rajo badan laga muujinayo oo xaaladdu ay noqon karayso mid nabad lagu qaato halkaasi Trumpna ay ka hirgeli karto rabitaankiisa shabakadda Mareykanka ee lagu magacaabo EBC ayaa tilmaamaysa iyadoo xiganaysa mas'uuliyiin Mareykan oo ku dhow aqalka cad kulanka oo dhawaan dhici doona labada dhinac Mareykanka iyo Iran waxa uu eg yahay mid lagu guuleysan doono oo Tehran iyo Washington bay qaadan karaan baa la yiri xabad joojin
aad u wanaagsan oo labada dhinacba ay soo dhoweyn karaan. Al-Jazeera waxay sidoo kale saaka xiganaysaa majalada la yiraahdo Wall Street Journal, waxana ay leedahay majaladaasi ciidamada Mareykanku ee go'doominta ay ku hayaan aagga badda ee dalka Iran waxa uu noqon karayaa mid sii socda ilaa waqti aan la magacaabin. Jirada waxay leedahay arrintan waxay xitaa qaadan kartaa marka la eego bilooyin si hoos loogu dhigo arrimaha dhaqaalaha wadanka Iran looguna qasbo wada hadal inay qaataan. ciidamada badda ee Mareykanku waxay awood u leeyihiin baa la yiri sida majalladan ay qorayso in ay sii wadaan go'doomintan ilaa waqtiga Trump oo arrintaasi qaadanayo. DJ Vance waxa la leeyahay waxa uu u diyaarsan yahay in isagoo wada hadalka ku matalaya dowladda Mareykanka uu u socdaalo dhinacaasi iyo wadanka Pakistan oo wada hadalladu ay ka dhici doonaan. wargeyska ka soo baxa Israel ee The Hearts lagu magacaabo ayaa isna qoraya madaxweyne Trump ma dalban buu leeyahay wada hadallo ka hirgala wadanka Lebanon iyo xabad joojin dhameystiran, laakiin waa soo dhaweeyay tallaabadaasi. majalada oo soo xiganaysa mas'uul Mareykan ayaa waxay leedahay Washington marnaba kama dalban Israel inay xabad joojin ka gasho wadanka Lebanon, laakiin arrintaasi waa mid diidadeela lahayd uu soo dhaweynayay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump. wasaaradaha amuraha dibadda ee wadamada Iran iyo dalka Shiinaha ayaa ka wada hadlaya xaaladda marinka Hormuz ee iminka Mareykanka uu go'doonka ku hayo. wasaaradda amuraha dibadda Iran ayaa tilmaamaysa in wasiirka lagu magacaabo Abbas Araghchi uu teleefanka kula hadlay dhigaysa wadanka Shiinaha Wang Yi, waxaana ay ka wada hadleen caqabadaha ka iman karaya haddii Mareykanka uu ku cadaadiyo dowladda Iran arrinta la xiriirta Hormuz, taa beddelkeedana dowladda Iran ay qaadi karayso tillaabooyin waaweyn. bayaan ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Iran waxaa lagu yiri Araghchi waxa uu dhinaca kale u soo bandhigay waa Shiinaha taas in ay tahay mid aysan ka gorgortami doonin oo taabanaysa mustaqbalka wadankaasi. xalay gelinkii dambe waxaa lagu soo warramayaa duqeyn ay geysteen ciidamada Israel in ay ku geeriyoodeen 10 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen gudaha wadanka Lebanon, gaar ahaan aagga koonfureed. waxaana lagu soo warramayaa deegaanada waxay ka dhaceen waxaa ka mid ah Wajbaac oo koonfurta ku taala, taas oo muujinaysa in ay xiisadu ka sii baxayso faraha oo xaaladdu ay culus tahay. haddii aan sii eego wararka kale oo ay wargeysyadu saaka qorayaan, Israel waxay soo bandhigtay ilaa 3 shardi oo ay doonayso haddii wada xaajood laga galayo xiisada wadanka Lebanon in 3 qodob la meel mariyo, taasoo Israel ay wax ku aqbali karayso sida ay leeyihiin. wakaaladaha wararka AP iyo Anadolu oo ayaa xiganaya mas'uuliyiin kala duwan oo Israel ah, waxaana ay leeyihiin in Iran ay leeyahay Israel ay dalbanayso in Iran laga saaro guud ahaanba dalkeeda walxaha nuclear-ka ee la hodmiyay, in gabi ahaanba la joojiyo awoodda Iran ee kobcinta uranium-ka gudaha wadankeeda, iyo waliba in la xoojiyo oo la furo marinka Hormuz. taas waxaa raacsan bay leeyihiin 3 qodob oo kale oo arrimaha Lebanon taabanaya sida ay hadalka u dhigayaanba. waxaana arrimahan ay ku sheegeen haddii aanay suuro gelin in aysan noqon karayn guud ahaanba wada hadallada dalka Lebanon laga galay iyo tan bariga dhexe inay xiisadu isbedeli karayso. qodobadan ayaa waxay kala yihiin 3 ah oo kale in la sameeyo aag amni ah oo ka xiran hubka iyo joogitaanka ururka Hezbollah, gaar ahaan koonfurta webiga Litani, taas oo muujinaysa baa la leeyahay Israel in ay horay dhulkaasi u dalbatay inay qaadato, laakiin weli qorshe ay daba socoto. qodobka labaad ay soo bandhigta waxay tiri ciidamadeena waa in la siiyo xorriyad military oo ay ku fulin karayaan weerar iyo howlgallo ay ku sheegteen ay kaga hortagayso qatara ka dhana, isla markaana ay ku qasban tahay dowladda Lebanon in ay qasab ku qaadato, iyo in la bilaabo qorshe muddo dheer qaadanaya oo hubka dhigis loogu sameynayo ururka xisbiga. taasi haddii aanay suuro gelin baa xukuumadda Netanyahu ma aqbali doonta ay leeyihiin in heshiiskan si degdega loo dhaqangeliyo. isla wararka ka imaanaya marinka Hormuz haddii aan eegana,
ciidamada waddanka Mareykanka ayaa waxa ay ka warameen markii ugu horeysay ilaa iyo 7 dooniyood oo ay dib ugu celiyeen xeebaha waddanka Iran tan iyo markii ay bilaabeen arrinta la xiriirta go'doominta badeed ee dowladdaasi Iran. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in askarta badda ee halkaasi joogta ay si buuxda u xoojiyeen xayiraadda lagu soo rogay maraakiibta galaya iyo kuwa ka baxaya dekedaha waddanka Iran xilli uu sare u kacay joogitaanka ciidamada badda ee Mareykanka ee gacanka Cumaan. sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay taliska dhexe waxaa la yidhi ma jiro wax markaba oo awooday in uu jabiyo ama ka gudbo xayiraadda 48 saac ee ugu horeysay tan iyo markii ay bilaabatay howlgalladan. laakiin Mareykanku waxay meesha ka saareen sheegashadii dowladaha qaar sida Shiinaha oo tilmaamay in halkaasi ay ka gudbeen taas oo warbaahinta dunidu ay si weyn u tabiyeen. taliska ayaa intaa ku daray in 9 markab ay u hoggaansami waayeen tilmaamaha ciidamada Mareykanka isla markaana ay dib ugu laabteen dekedaha Iran ama aag xeebeed ay horey uga soo dhaqaaqeenba. talisku waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanku ay sii wadaan roondo joogto ah oo ka socota baa layidhi gacanka Cumaan si loo joojiyo fulinta ama loo xoojiyo fulinta xayiraadaha iyadoo la sheegayo in ciidamada Mareykanku ay si buuxda ugu jiraan baa layidhi si loo hubiyo amarada la raacayo. arrintan ayaa imaanaysa xilli xiisadda badeed ee gobolku ay sii adkaanayso isla markaana la sheegayo in cadaadis lagu soo kordhiyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee halkaasi ka jira. haddii aan eego dalka Mareykanka iyo waliba xiisadda kala dhaxaysa waddanka Iran, dowladda Pakistan waxa ay saaka ruuclo orod ugu jirtaa daqiiqadihii ugu dambeeyay oo dhinacyada kala duwan ay ku qancinayso in ay yimaadaan miiska wada xaajoodka si heshiiska uu noqdo mid dhammaystiran oo nabad horseeda. subax wanaagsan ayaan idin leeyahay khiyaarta ay nala socotay. soo dhawaada barnaamijka iyo tabinadeena kale ayaan ku soo gudbin doonaa xogaha kale ee xiisaha leh ee ku saabsan wararka bariga dhexe. ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo mahadsantiin.